dalka Lubnaan shan maxaabuus ayaa ku dhintay shil gaari kadib markii baabuurka ay ku baxsanayeen oo geedi fooda daray. maxaabiista ayaa ka mid ah tiro ka soo baxsay xabsi ku yaala meel u dhow caasimada Beirut. 69 maxaabuus ayaa fursad u helay inay jibiyaan albaabka qolalka ay ku xirnaayeen, sidaasna ay ku baxsadeen. 15 ka mid ah maxaabiista ayaa gacanta lagu soo dhigay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ee NNA. mid ka mid ah maxaabiista ayaa waxaa xabsiga dib ugu soo celiyay hooyadiisa. lamaanaha ammaanka ayaa baaritaanka wada deegaanka waxaan dadka halka ku nool lagu wargeliyay inay feejignaadaan. shilka ayaa dhacay kadib markii 6 ka mid ah maxaabiista baxsadka ah ay xoog ku qaateen gaari maray meel dhow xabsiga ku yaala degmada Babda. gaari cad oo nooca taxi ah ayaa afka daray geedka wadada dhinaceeda ku yaal, waxaa saarnaa tiro maxaabiis ah oo soo goosatay oo afduubtay darawalka watay gaariga, ay sheegtay wakaaladda NNA. waxay intaa raacisay in 5 maxaabuus ay ku dhinteen shilka halka mid kalena uu ku dhaawacmay. mas'uuliyiinta Lubnaan ayaa bilaabay baaritaan ku aadan ka baxshada xabsiga. dacwadooga ayaa sheegay inay meesha ka saari dooneen in nooc wadayaasha ay dhaxmartay maxaabiista iyo ilaalada xabsiga.